sidaad la socotaan ilaa maalintii sabtidii ayaan halkaan ka dhoofay anoo u safray magaalada Garowe oo waqtigaas loo waqtiyay kursigii aan islahaa inaan u tartamo oo tartankiisa aan u galo oo markaas ka madlanaa marka waxaan aad iyo aad uga xumaay in maxaa la yiraahdaa loo diiday bulshadii lahayd kursiga inay si cadaalad ah oo iyaga doorashadooda ah ay u doortaan cid ku matalaysa baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxaan kalsooni buuxda ku qabnay dhammaanteen dhowr iyo tobankii bilood oo la soo dhaafay inaan si wanaagsan aan islahayn inaan kursigaas inaan ku hanano oo haddii ilaahay yidhahdo aan ugu shaqayno ummadda Soomaaliyeed aan ugu adeegno laakiinse nasiib darro iyadoo taas laga cararahayo taas cabsi weyn ay keentay ayaa waxaa lagu kacay waxyaabo dhinaca marsan sharciga oo baalmarsan habraacyadii loogu talagalay doorashada inay ka dhacdo Soomaaliya baarlamaanka loogu talagalay wax baalmarsan oo qaabka loogu talagalay in lagu la dhaqmo waxyaabaha cajiibka aan rabo inaan la qaybsado waxay tahay anigu dhowrkii maalmood aan joogay waxyaabaha ay ugu cajiibka badnaa waxay ahayd waa laga yaabaa maamul meel ka jira inuu la jeclaysto qof inuu la jeclaysto oo kursi la jeclaysto oo siyaasaddu waa sideedaba waa iskaalmaysi iyo isgargaarsi laakiinse markasta waxa loo dhaxmaraa sidii loogu talagalay oo afraacyadii degsanaa iyadoo la raacayo ayuu cid kastaaba siyaasadda cid ay isku jaalka yihiin ayay u hirgelin kartaa waxyaabaha ugu cajiibka badan waxay tahay waxaan ku soo aragnay Garowe waxyaabaha aan horena loo maqal aan isleenahay waxyaabo ceebna waxay ku tahay in la yiraahdo Soomaaliya doorashadeeda guud ahaan iyo gaar ahaanba Puntland oo isleenahay hadda waxay jirsatay ugu dhawaad ruux qarni jirsatay oo la yiraahdo waa hooyada federaalka in waxyaabaha noocaas oo kale in lagu la kaco waxa cajiibka oo qosol kale waxay tahay in madaxtooyadu ay amar siiso oo la soo hadasho guddiga loogu talagalay doorashada oo ama siidka loo yaqaan ama guddiga doorashada oo heer maamul goboleed oo amar lagu siiyo la yiraahdo fulaan hebel waa inay siisaan foomamka dadka guddoonka iyo maxaa la yiraahdaa dadka dhaqanka ah iyo kuwa bulshada rayidka matalahay iyo kuwa ergada matalahay in la siiyo oo aad arkayso foomamkii loogu talagalay in ay guddigaas ay ku si cadaalad ah oo wanaagsan ay u buuxiyaan oo u hagaajiyaan oo hoteelada qolalka hoteelada iyo makhaayadaha saf loogu jiro oo lagu buuxinayo waxyaabaha marka cawaaqib xumada iyo fool xumada leh oo aan ku soo aragnay Garowe ayay taas waxay ka ahayd meel waxyaabaha fadeexada iyo balka dhac u ah haddii aan isku darno isku cabirno anigu 2016 waxaan ku jiray dadka u tartamayay kursigan laftigiisa sanadkaas 2016 ama kalkii hore Puntland waxay ahayd oo markaas ay caan ku noqotay inay hormuud sharaf iyo qurux iyo wanaag iyo model wanaagsan ay u noqoto doorashada waddanka ka dhacday dhamaantood oo si cadaalad ah oo nidaamsan oo dadku ku wada faraxsan yihiin aniguna ku guuleysan anigoo faraxsan oo wanaagsan oo qalbigaygu aad igu fiican yahay iyo dadkii kale aniga midkaaga dhan sidaas ay ugu soo wada noqdeen taasi waxay ka dhigan tahay dadkii xilligaas xukunka hayay ayaa waxay ahayd dad ay ku weyn tahay oo ka fakaraya oo ka naxaya wada jirka iyo maxaa la yiraahdaa wanaagga iyo horumarka ay leedahay Puntland dad u naxaya oo dareenka shacabkoodana iyo dadkoodan ilaalinaya ahaayeen laakiin hadda kuwa jooga waxa ka muuqda inaysan waxaasba aysan u aabiyeelin aysan ku dhex jirin aysan ka fakarayn haddii magaalo meel ka gubanaysa mid meel ka qaxaysan dad qaylinaya toona inaysan ka fakarin sidii ay ugu talagaleen si kasta inay si booba oo lahayn loo aabiyeelin inay ku qaataan ay u dhaqmayaan aad moodid dad aad moodid inaan wax danaba ka lahayn oo raba inay ka qaxaan oo doorashadan ba hal mar hana dhaafta leh oo inay ka soo qaxi doonaan inay ka qaxayaan Puntland baan dan ka lahayn sideed inay yihiin dad u dhaqmaayo marka waxaan soo jeedinayaa shacabka Puntland guud ahaan gaar ahaan waxaa la yiraahdaa beelweynta ama bahawadaagta ahayd oo lahayd kursiga 166 inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka tashadaan ayahooda iyo sidii aysan dib dambe sidaan oo kale tacadigan iyo takrifalka intaan oo kale leeg inaysan ku dhicin oo inay ka fakaraan oo ayagu mustaqbalkooda dambe waxyaabahan oo kale sida ay isaga dhoori lahaayeen oo isaga ilaalin lahaayeen ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u hambaliyo u sii hormariyo ninkii kursiga loo xiray oo ku noqonay xildhibaan ku noqonaya hadda hambaliyadan u sii hormarinayaa waxaan rajaynayaa
inuu si wanaagsan oo cadaalad leh inuu ugu howlkarnimo leh inuu ugu howlgali doono uguna shaqayn doono uguna adeegi doono bulshada looga dhigay xildhibaanka ayagoo aan dooran laakiinse looga dhigay xildhibaanka aad iyo aad baad u mahadsantihiin saxaafadda sharafta leh waa idinka mahadcelinayaa kulankiina ilaahay baa mahadle asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier